salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuhu canda odayaal kusoo dhowaada barnaamijka xogogaal oo aad kala socotaan kanalka akram media. barnaamijkeena caawa waxaan kusoo qaadan doonaa liiska 10 dal ee ugu isticmaalka badan caalamka maandooriyaha cocaine. ka hor inta aanan u gudagelin qeybaha dambe ee barnaamijka, waa maxay cocaine? cocaine ama coke waa firfircooni ama nashaadsiye awood badan kaasoo inta badan loo isticmaalo madadaaliye ahaan. wuxuu caan ku yahay hababka kale ah urinta, jiidida sida sigaarka, ama in la qaso kadibna xididka la iskaga duro. saameyntiisa maskaxda ama marqaankiisa waxaa ka mid ah qofka oo waaqica dhabtaa ka dhex baxa dareen farxadeed oo xoog leh iyo kacsanaan. calaamadaha jir ahaaneed ee la dareemi kara waxaa ka mid ah wadna garaac zaa'id ah, xaddi badan oo la qaato waxaa ka dhalan kara cadaadiska dhiigga oo sare u kaca amaba heerkurka jirka. saameynteeda waxay ku bilaabataa islamarkaana lagu dareemi karaa ilbiriqsiyo ama daqiiqado la isticmaalo, iyadoo ku eg 5 daqiiqo ilaa 9 daqiiqo. isticmaalka cocaine ee dhanka caafimaadka aad ayuu u yaryahay, iyadoo loo isticmaalo suuxdinta iyo yaraynta dhiigbaxa inta lagu guda jiro qaliimada sanka. maandooriyaha cocaine waxaa lagu kala siistaa suuqyada caalamka qiimo dhan 94 bilyan ilaa 143 bilyan sanad walba, sida lagu xusay dhowaan warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee dembiyada iyo daroogada. waxaa wadamada safka hore ka galay dalka Albania oo guud ahaan dadkiisu ay isticmaalaan 2.5 boqolkiiba. kaalinta labaad waxaa galay Scotland oo dadkiisu ay isticmaalaan 2.34 boqolkiiba. kaalinta saddexaad waxaa gala Mareykanka oo dadkiisu ay isticmaalaan 2.03 boqolkiiba. kaalinta afaraad waxaa galay England oo dadkiisu ay isticmaalaan 2.25 boqolkiiba. kaalinta lixaad waxaa galay Spain oo dadkiisu ay isticmaalaan 2.2 boqolkiiba. kaalinta toddobaad waxaa galay Uruguay oo dadkeedu ay isticmaalaan 1.8 boqolkiiba. kaalinta sideedaad waxaa galay Chile oo dadkiisu ay isticmaalaan 1.73 boqolkiiba. kaalinta sagaalaadna waxaa galay dalka Netherland oo dadkiisu ay isticmaalaan 1.6 boqolkiiba. ugu dambeyn kaalinta tobanaad waxaa galay dalka Ireland oo dadkiisu guud ahaan ay isticmaalaan 1.5 boqolkiiba. sidii caadada noo ahayd, haddii aad ka hesha muuqaalka fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada. ha ilaawin haddii aad nagu cusubtahay inaad subscribe dhahdid si aad u hesho muuqaalo kale oo ku xiiso geliya.